maxaa ku ogeysiiyey shakhsiyadda Bilaal addoonkii sida arxan-darrada ah loo ciqaabi jiray laakiin ugu dambayntii ka mid noqday ragga ugu fadliga badan saxaabada rasuulka? ku soo dhowaada qisada qaybtii koowaad ee mu'addinkii koowaad ee rasuulka sallallahu calayhi wasallam. waxa uu ahaa Bilaal ibnu Rabaax abi Cabdillaahi al-Xabashi. waxaa la sheegaa inuu ku dhashay magaalada Dimashq. sidoo kale waxaa la yidhaahdaa Maye waxa uu ku dhashay Makka al-Mukarrama 3 sano ama ku dhow kadib dhacdadii loo yaqiinay Caamul Fiil. Bilaal waxa uu addoon adeega u ahaa mid ka mid ah sanaadiiddii iyo ugaasyadii Quraysheed kaasoo la dhihi jiray Umayya binu Khalaf oo ka dhashay reerka la yidhaahdo Bani Jumux, kuwaas oo Qurayshta dhanka faalka iyo qurbaanta sanamyada u qaabilsanaa. waxa uu Bilaal ahaa addoon Xabashi ah oo madow kana soo jeeday qaaradda Abasiiniya. isaga iyo hooyadiisba waxay ahaayeen addoommo. waxa uu raaci jiray ariga ninka uu addoonka u ahaa oo uu mayricin jiray duleedka iyo buraha Maka, galabtiina soo carraabin jiray. shaqooyin adag oo adeeg iyo dhib ku jirto ayuu la deris ahaa intii uu addoonka ahaa. waxayse xaaladdii isbeddeshay markii nebinimo loo soo saaray Maxamed binu Cabdillaahi, nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee. markaasoo Bilaal uu ka mid noqday caaraddii koowaad ee ugu horraysay muslimiinta. Bilaal waxa uu ahaa shakhsi uu Ilaahay u doortay inuu ka mid noqdo kooxdii ama qaybtii yareed ee farakutiriska ahayd ee rumaysay nebigeenna suuban nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee horraantii dacwada islaamka. wuxuuse ahaa nin qarsan jiray islaamkiisa jeer maalintii dambe uu ogaaday sayidkiisii Umayya binu Khalaf al-Jumuxi. halkaasi ayay ka bilowdeen maalmihii madoogaa ee Bilaal lagu cadibayey jeer uu ku dhowaaday geeri iyo inuu ciqaabtaasi la dhinto. haddiina raxmadda Eebbe aanay jiri lahayn waxa uu Bilaal noqon lahaa mid la dawaaqa ama la wareera xanuunkii ciqaabta ee soo gaaray, dabadeetana sababta inuu ka noqdo wixii laga reebayey oo ahaa islaamka, taasoo ciqaabta la marsiiyey marka la eego ay adag tahay in lagu sii adkaysto. wuxuuse Bilaal ahaa nin sugnaan iyo sabir badan oo adkaysigiisii qiimaha badnaa uu ka ilmaysiin lahaa buuraha waaweyn, baduhuna ay la hir tuuri lahaayeen. ku sabraha xaqa, adkaystaha sugnaanta badan Abu Cabdullaahi al-Xabashi waa shakhsiga uu magaciisu camiray dunida islaamka. waa ninka uu Ilaahay ku suntay maanta inuu dhammaan ummadda islaamka u noqdo sayid la weyneeyo oo qiimo iyo qadarin aad u weyn ku leh qof kastoo muslima agtiisa. waa sidaase alla kor ahaaye baan dayicin ajirkiisa oo ka yeelay mid markii la xusaba la yidhaahdo sayidkeenna Bilaal Ilaahay ka raali noqdo. inkastoo ay dacwadu cusbeed, Bilaalna uu ahaa nin maqal hadalka sayidkiisa oo addeeca. marka lagu yidhi ka noqo rumaynta Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee iyo diinta uu la yimid, wuxuu la soo baxay dabeecad aanu abaankiisa horey ugu oqon, taasoo ahayd inuu dafiro oo uu iska diido amarkaas. waxa uuna yidhi marna dhici mayso inaan ka noqdo diintan uu la yimid Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee. hanuunka alle ka sokow Bilaal waxa uu ahaa nin aqoon u lahaa Nebi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee oo arki jiray yaqiinna runtiisa iyo inuu ahaa nin akhlaaqdiisu ay Maka oo dhammi ka sheeganayd. sidaas darteed buu durbo bilaabay inuu u iisho dhanka xaqa oo uu ku mintido ilaa uu ku geeriyoodo, isagoo taas yaqiin aad u weyn yaqiinsanaa inuu alle ugu dhowaanayo. Nebi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee xilligaas iyada ah waxa uu ahaa marka uu soo maraba mid u dhimriya oo khayr ugu duceeya Bilaal. ciqaabtii Bilaal la marsiin jiray waxa ay ahayd mid aan hal nooc ahayn balse kala duwaneed. waxaase ugu xanuun badneed middii inta la kaxeeyo mar kastoo ay cadceedda Maka soo kullaataba la geeyo barxadda iyo bacaadka kuleelka badan baa isagoo xabad qaawan la seexin jiray carradaasi dusheeda, dabadeetana dhagax weyn oo sallax ballaaran ah oo kulul loo saari jiray xabadka iyo caloosha. intaas loogama hari jirine waxaa loogu sii dari jiray xaaladda noocaas ah jeedal iyo in lala dhaco xarig aad u adag oo xanuun badan. sugnaantii iyo sabirkii Bilaal waxay sababtay inaanu wax kale afkiisa ka soo bixin mar kastoo lagu yidhaahdo ka laabo diintan ama ciqaabta loo siyaadiyaba. ma ahan inuu yidhaahdee alla waa keli, alla waa keli. oraadaasuu ku celcelin jiray mar walba intuu xaaladdaasi ku jiray. من هو الأقوى؟ أحد. تكلم. ciqaabta kale ugu darneed oo la marsiin jiray waxaa ka mid ahayd in qoorta loo suro xarig oo lagu adkeeyo ayaa lagu wareejin jiray magaalada
oo carruurta iyo haweenka ayaa dhagaxyayn jiray saa isagoo dhiiggu ka hooraya oo dhimasho ku dhow la xarayn jiray maalinka dambena ciqaabta sidaas ayaa loogu wadi jiray markaas buu nebigu nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee aad ula murugooday oo uu ka xumaaday ciqaabta joogtada ah ee lagu hayo Bilaal oo aanan awoodi karin wax kale iyo xeeladu isaga fakiyo gaaladaasi nolosha ku ciqaabayso markaas buu nebigu u tagay Abuubakar oo ahaa nin maalqabeen ahaa oo xoreyn jiray addoommada markaas buu ka codsaday inuu xoreeyo Bilaal dabadeetna Abuubakar baa soo maray halkii Umayya ku ciqaabayay Bilaal markaas buu ku yiri war ma iga iibsatid addoonkan markaas buu Umayya arrintaasi ku farxay waayo waxa uu arkay nin madax adag oo haddana aan dhimayn ciqaabtiisana uu ku daalay markaasuu qiimo culus sheegtay saa Abuubakar baa ka iibiyey oo qiimihii siiyey dabadeetna Bilaal xoreeyey markaas buu nebigu nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee aad ugu farxay una duceeyey Abuubakar waxaa kaloo la sheegaa inuu Abuubakar ku beddeshay addoon kale oo gaal ahaa oo u joogay Allah baase naga og xilligaas isaga ah kadib Bilaal wuxuu ka mid noqday saxaabadii waaweyneed ee ka ag dhoweed nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waxa uuna noqday nin xor ah kadib ciqaab iyo xanuuno badan oo soo maray wax badan kama soo wareegin jeer ay buuxsantay bixidii nebiga 13 sano markaasoo saxaabada ay u soo qaxeen magaalada Yathrib haatana loo yaqaano Madiina Bilaal wuxuu ka mid ahaa caaradii dhexe ee hijradaasi isaga oo jaray masaafo dhan 500 oo kiiloomitir ama ka badan si uu u raadsado meel uu rabbigiisa si xor ah ugu caabudo Caaisha Allah ka raali noqday waxay tiri markii rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee uu Madiina yimid baa Abuubakar iyo Bilaal xanuunsadeen saawaan u soo galay oo ku dhahay aabbo sidee tahay Bilaalow adiguna sidee tahay waxay tiri Abuubakar markay qandha qabato waxa uu dhahayay qof kasta reerkiisu ku waabariistaa moodkuna uga dhow kabihiisa suunkooda Bilaalna waxa uu lahaa alla maan habeen baryo tub ay hareerihiisa ku yaalaan geedka idaqarka buurta Jaliil oo maalin u arooro biyihii majina oo may in muuqdaan labadii buurood ee Shaam iyo Dhufayl tani waxay muujinaysaa hilowgii uu qaaday Bilaal magaaladii uu ku soo barbaaray ee Makka laakiin markii Caaisha uga warantay qisadaasi rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee buu u duceeyay magaalada Madiina oo uu yiri Allahayow na jeclaysii magaalada Madiina sidii aad noo jeclaysiisay Makka ama si ka sii daran oo barakeed darkeeda oo xumadeeda iyo qandhadeedana naga dulqaad oo u rarticsa ducadaasi qiimaha badan Ilaahay waa aqbalay saxaabadiina waxay noqdeen kuwa jeclaada magaalada Madiina in ka badan jacaylkay u qabeen Makka waxayna noqotay mid uu sabab u ahaa saxaabigan jaliilka ah ee Bilaal ibn Rabax ku nagaashihii Bilaal ee horaantii hijrada wax badan kama soo wareegin jeer uu rasuulka alle nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee bilaabay inuu la soo baxo xigmadiisii iyo xeeladihiisii gunta dheereed ee uu ku dhisay dawladdii ugu horreysay islaamka waxa uu bilaabay tallaabadii koowaad oo ahayd walaalaynta muhaajiriin iyo ansaar markaasoo Bilaal uu nasiib u yeeshay in lala walaaleeyo saxaabi fadli badnaa oo muhaajiriinta ka mid ahaa Bilaal nasiib uma yeelan in lala walaaleeyo ansaarta waxaana lala walaaleeyay Abu Ubayda Aamir ibn Abdullah al-Jarraahi oo ka mid ahaa saxaabadii ugu fadliga badneed asxaabta misana ka mid ahaa 10kii jannada loogu bishaareeyay ee haddana ugu horreeyay ee qaata dacwada diinta islaamka ninkan Bilaal lala walaaleeyay waa amiinkii ummadda Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waana ninka uu Umar xaqiisa ka yiri markuu geeriyoonayay haddii uu noolaan lahaa Abu Ubayda waxaan uga tagi lahaa khaliifada muslimiinta waayo waxaan maqlay rasuulka alle nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee oo oranaya Abu Ubayda waa amiinka ummadan ninkaasi qiimaha badan ayaa Bilaal uu rasuulku u dooray inuu la walaaleeyo talaabadii labaad ee rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee uu sameeyay markii uu yimid Yathrib ama Madiina waxay ahayd dhisidii masjidka oo ahaa xaruntii ummadda laga hageeyay salaadahana laga gudanayay xilligaasi waxaa laga dooday sidii loogu yeeri lahaa dadka xilliga salaada qaar ka mid ahaa asxaabta nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waxay soo jeediyeen fikrad ah in la garaaco bir sida nasaarada oo kale qaarna in buun la yeeriyo sida yuhuudda oo kale laakiin labada talo ee ficiladaas rasuulka ma cajabinin wax badan kama soo wareegin jeer Cabdullah bin Sayyid bin Rabiix oo ka mid ahaa asxaabtii reer Madiina uu ku riyooday aadaanka markaasoo Ibn Sayyid u tagay rasuulka oo uu uga warramay wixii uu ku riyooday markaas buu nebigu nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee amray inuu Bilaal baro aadaanka markaas buu baray oo nebiguna u doortay mu'adinkiisii koowaad waad ku mahadsantahay la socodka qaybtan koowaad ee qisada
la soco qaybta labaad ee qisada Bilaal. Mahadsanid.